ودaan ku soo badbaadinaa nool hayno intii karaankayga aanu galnay biyihina naga tambateen aanu ka soo laabanaa ku nidhi walaalo ashahaada qabso oo ashahaado aan ashahaada xasuusinay marka ninkuu ka booday markiiba ilmeeriyo wuxuu la booday ilmihiisii rabu la booday sidii loo sheegay laa inankiisu ahaa waxay hayeen markii igu lahayd walaalo midaan jir damqada lahayn walaashiinoo kale aanay meesha iga saara halkani oo ah dooxa weyn ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu qaaday gaari nooca loo yaqaan Brabus iyo waliba sidoo kale haweeney saareed waxaana xusid mudan in halkaasi laga badbaadiyay darawalka iyo waliba sidoo kale ilmo yar oo gaarigaasi saaraa goob joogayaal ku sugnaa halkaasi ayaa Home Cable TV uga warramay sida dhacdadaasi u dhacday maxay heeday goob joogan ahaanigu markii gaarigu biyaha u qaadinayo dooxa ku soo dhacay kadibniyo gaariga ka joog baa lagu raadiyay biyaha dad badan baa ku dhiga jooga oo isku qaaday marka dadna meesha way taagnaayeen laha biyaha dooxa naga taloobiyo biyahana dhaafi kadib dadkii uu diiday oo uu iska dhaqaaqay kadib gaarigii markuu dooxa bartamay biyo ku soo beegay ayuu gaariga jarka ka tuuray jarkii markuu ka tuuray gabadhii maxay ahayd iyo ninkii ilmi yaraaba uu ninkii ilmihiiba biyo la baxeen sinid ninkii ilmihiiba biyo way qaateen oo gabadhiina gaariga intuu surogay ee madaxa kor la soo baxday aanu aragnay ayaanu soo yaacnay kadib gabadhii baa tiri walaali badbaadiya marka waxaan isku xidhnaan oo isku caawino intii ragga meesha joogtay ma haysan waanu cararnay xadkii xaafadu dharka ku waranaysaanu soo furfurnaa soo googoosanay xadkii baan isku gigijinay dhexdaan ku xidhxidhanay marka nin noogu yara dheeraa baanu xadhigii iska horreysiino isaga hadda yara dheeraa ma garanaysaa oo dad ku nidhi adigu naga hore anaguna xadhigan ku gijinay oon isdaba soconay kadib gabadhii markaan in yaro in xoogay u jirno والله دي أينا لهيد ولا لميدان تشير دم قدر لهين ماشي جب بدبادي ده يجوريسي أنا نقول لهين دي ولا أنت كران كي يكون كوقبا نهين السوق محي هذي مركاري كسوي شري أي واحد عادي موجود بيه صوبتين تور سمين كتب جوردي بود بيه لبحين أي قرية نيدي وقارن تمد حدي وكلمة كانوا سارقني بيه لبح هذا الذي والله يقول هيدي يقولي على شيء حنون نساء يعني حتى نيو استرس والله يقول كاني وحين مركي يقول هيد ولا لميدان تشير دم قدر لهين ولا شيء نو كلانه ماشي جسارة يجيب بدبادية يسوق جرمده أنا قلنا أنا رجنين أنا دي أود أنا كسب بدبادية أنا لهين أنت كران كي كانوا قلني بيه نقد تنبتين أنا كسر الله بنا كوني الدولة على الشهادة قبصه والشهادة أنا شهادة حسوسيني شهادة نسيدي كو قبصتي سيدي بيو كل صبح يعني سيدي بيو سوق حيستين متى كلني دولتين أنا عيدا كوانو قرعني الدمسكا maxay heeday ku dhawaad 30 minid meelaha ilaa 50 minid ay gabadhu meesha ku jirtay intiiba moolkooda oo qaraacinay maxay heeday mar dambaanay moolkii naga qabteen oo ay meeshii maadeenay gabadhiina biyo la tageen gaarigina markay biyo sii qaadanayaan marka dawladana mid baan farayaa waa in markii roobku da'aan masiibooyinka noocan oo kale laga feejignoodaa jidgooyo sameeyaan ay dadka ka celiyaan dooxyada baabuurta ka celiyaan ay jidgooyo sameeyaan taasaan kula talinayaa ciidanka dadamiskana ay shicibkooda ay dharka u xidheen inay heegan u ahaadaan oo wax qabadkooda la arko wax qabadkooda muujiyaan saani dad badan nooga dhiman caawa masiibadaasi nagu dhacday si yaani dib inooga dhicin sida xuu dhacay markii hore ninku Brabus buu watay kulli dadku sidoo kale buu ahaa markii uu talaabayay markuu talaabayay adu dad badan baa ku ka joog ka bacdi ilaa dadkuna meesha kuwa iska farfadhiyaan dad waxa jira gaar halkan oo ilaaliya marka ka joog baa lagu yiri ninku degdegsanaa markiiba gaarigii markaa bartamaha ayuu ku beegay uu ka dhacay markii hore Brabus halka way ka dhacday marka ninkuu ka booday markiiba ilmeeriyo wuxuu la booday ilmihiisii rabu la booday sidii loo sheegay laa inankiisu ahaa marka waxa dhacday inuu isagu uu daadkiis raaciyo uu daadkii markaa dhinaca faraska ka baxo gaarigiina gabadhii baa laga dhaxtay gabadhii xoogaa ilaa 30 daqiiqo ayay dadka la hadlaysay ay dadku u wada xarka wuxuu xidheen oo dad badan oo meesha joogay ay isla hayeen badbaadiya ayna la hadlaysay macal codkeeda la maqlay oo ay lahayd midaan dadna xay ahayn badbaadiya ay lahayd marka adigu inantu dawaji horta ilaahay hadduu qorayna dhimato imka in la inta kastoo la laayay hadduu qorayna dhimato ilaahay oo naxariisto haddii inta la helana ilaahay soo badbaadiyo laakiin inanta iyo waxa ku jiray iyo wiilka iyo ilmaha yar la sheegay siday wax u dhacaan laakiin anagu gaariga markii hore ka joog baan ku ornay isla markuu galayna isla daadku meeshu way madowda habeenkii macal waxa la arki maayo isla markuu galayna waxaan markiiba loo sheegay inuu ninku badbaadiy ay gabadhuna sidii halka u fadhiday marka adigu kolba soo daadku soo badanayay ay kolba iyaduna u sii mataqaanaa uu sii qarinay daadku markii uu daadku soo batay oo uu madaxeedu sii qarsamayay ay dadka xaafadda ku iska sii ashaado marka dadkuna dad waxay ku badbaadiyaan iyo qalab ma haysan dadamiskuna waxay imaadeen goor ay mataqaanaa oo gaarigii iyo qofkiiba la waayay oo laga quustay dadka halkan dad badan ka barooranayaan ay dad badanna tasbiixda u hayaan
markaa sidaa dee wax u dhaca saasay wax u dhacaan weli daawadayaal waxa socda baadigoobka loogu jiro haweenadii caawa daad ku qaaday waxay hadda ila taagan mid ka mid ah dadka ka qayb qaadanaya inay baadhaan haweenadaasi caawa daad ku qaaday daadkaa gabadh qaaday maanaan dee meesha joogin laakiinse haddii aan joogi la waan badbaadin lahayn markay damiskuna soo dhaafiyin baan arkin anu waxaan islahaynba guribaaba gubtay dee ismaanaan lahayn gabadh buu qaaday oo daadkaa soo dhacay waan arkaya laakiinse adigu habase haatee daadkii qaaday gabadha ilaa xatil aan ka wada aragtaa inaan howlgalka ku jirno oon baadhayno gabadhii uu daad ku qaaday ilaa maanta waxaanu ku jirnay dee baadigoobka gabadha aan deydeyno imika waxaanu ku soo egnay ilaa ina aftiille ilaa intaa u soo sokayso dhan baan ku soo egnay baabuurkii iyo gabadhii mid toona meelna aan ku sheegno garamayno markaa waxaanu leenahay insha allah ka seexan mayno ilaa aanu gabadha helno saasaanu baadigoobinaa sidaas amba meydkeedii aanu helno amba aanu helno waxaan kuudhi iyadoo dee nool insha allah bal inaanu ku guulaysano inaguna waxaan leenahay noo soo duceeyniyo ciidamada booliska Soomaaliland oo la xidhiidhnay ayaa waxay noo xaqiijiyeen in gacanta lagu hayo darawalkii waday gaarigaasi waxaana ay bulshada ugu baaqeen in xilli roobaadka laga digtoonaado dadka iyo weliba fatahaadaha Cabdiraxmaan Yaasiin British Home Cable TV Hargeysa